ayaa aamini lahaa in sawiro lagu kala gato $100 magaalada Muqdisho dhexdeeda. dabcan tani waa arin ku cusub bulshada Soomaaliyeed. bandhiga noociisu uu yahay mid ku cusub Muqdisho waxa lagu soo bandhigayay sawiro ay qaadeen sawir qaadayaal sawiradooda ku muujinayay bilicda guud ee Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka. madashan waxa soo agaasimay hay'adda My Gallery oo ka shaqeysa sawirada iyo farshaxanka. in feedback-gan oo ka soo baxo arin sidaan u wanaagsan oo dadka ka heli doonaan aad baan ugu hamweenin oo ugu rajaweenin si uu program-kan uu u qurux badnaadana waxa aan sameynay intuusan program ka dhicin tababaro aan u sameynay dhalinyarada cameramanada dhalinyarada sawir qaadayaasha ahayd ee caawa soo bandhigay sawiradooda laga iibsaday dadkii ka soo qayb galay sawirada iibsadayna dhiirigelin bay u sameeyeen dhalintii sawir qaadayaasha ahayd ee sawiradooda ku soo muujiyay meesha annagana waxay noo ahayd dhiirigelin kale. sawirada la soo bandhigay waxay isugu jireen kuwa digital iyo farshaxan lagu sawiray qad iyo qalin. martida madasha soo xaadirtay waxay u badnaayeen dad ka shaqeeya saxaafadda iyo dad muddo ka soo shaqeynaya sawir qaadista. aniga markaan photography sameeyay uma sameeyeen inaan wax lacag ku sameeyo bashanoga wax iska jeclaa oo ilaa hadda aan jeclahay artska aan jeclahay laakiin waxa igu darsan activism oo ah qof u dhaqdhaqaaqa qadiyadda Soomaalinimada inaan noqoto. marka labadooda marka isku dirtid waxa ka soo baxaya wax wanaagsan activism. sawirka ayaa lagu tilmaamaa in lagu gudbin karo fariin. sawirada qaarna waxay gudbiyaan fariin ka badan 1000 eray. arinta xiisaha leh ayaa ahayd in sawir qaadayaasha sawiradooda laga iibsanayay kuwaas oo lagu qiimeynaya dareen ahaan waxa uu ka turjumayay. gallery baan ku soo bandhigay sawir farshaxan oo gacanta oo aan maanta bandhigan lagu soo bandhigay graphic-ka sawirada artka. marka runtii waa ii farxad inaan magaalada Muqdisho kaga soo qayb galay barnaamij noocan ah dhalinyaro badan ka soo qayb gashay. waxaanan farxad gaar ah iyo maaragtay dhiirigelin ii noqday sawiradeeda qaar in la iibsado aadna way ii farxad gelisay runtii. ugu dambeyn arintan ayaa noqonaysa tilaabo horseedi karta in sawir qaadayaasha da'da yar ee Soomaaliyeed ay helaan fursad ay ku soo bandhigaan hibadooda xirfadeed ee sawir qaadista. waa mid bilow ah iyo madal sanadle ah waxayna noqon doontaa meel isku balansadaan bulshaweynta xiisaha iyo xamaasadda u haya sawirada.